waxaa hadda war saxaafadeed ka soo baxay aqalka qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland kaasi oo nuqul ka mid soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Star waxaana war saxaafadeedku u dhignaa sida tan wareegta madaxweyne oo ku taariikhaysan 30 bisha 3aad 2019 madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegta madaxweyne oo xilka qaadis iyo sidoo kale magacaabid iyo isku bedel ku sameeyay xubno ka tirsan xukuumaddiisa waxaana u dhignayd wareegtada madaxweynuhu sida tan wareegta madaxweyne ujeedo xilka qaadis ku socota Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Diiriye guri barwaaqo wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo sidoo kale dhaqanka ku socota Ciise Axmed Yuusuf wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ku socota Maxamed Muuse Abees wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ay sumadiisu tahay inuu meerto noqdo oo loo igmado hadba cidii hanan karta sidaasi darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hayseen ee kala ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka waxaan idinka mahadcelinayaa muddadii aad hayseen xilka qaranka ujeedo xilka qaadis agaasimayaasha guud ku socota Jamaal Cabdilaahi Maxamed agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ku socota Maxamed Xuseen Axmed Dabeeye agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ku socota Cabdikariin Xuseen Siciid agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ay sumadiisu tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sidaasi darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hayseen waxaan idinka mahadcelinayaa muddadii aad hayseen xilalkaasi ujeedo xilka qaadis wakiilada ku socota Xasan Hirad Yaasiin wakiilkii hore ee Somaliland ee dalka Imaaraadka Carabta ku socota ayaan la Salaad Diiriye wakiil ku-xigeenkii hore ee Somaliland ee dalka Kenya mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sidaasi darteed waxaan gartay in taariikhda maanta laga bilaabo aan idinka qaado xilalkaasi aad hayseen waxaan idinka mahadcelinayaa muddadii aad hayseen xilka qaranka magacaabida wareegta madaxweyne magacaabid markaan arkay dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda markii aan ku qancay in ay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markii aan sameeyay la tashi ballaaran waxa aan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintan u magacaabay xilalkan Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga 2 Maxamed Muuse Diiriye Wacays wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Cabdirasaaq Cali Cabdi Saalax wasiirka wasaaradda cadaaladda Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Diqaadir Cumar Jaamac Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamed Yuusuf Ismaaciil agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Jamaal Cabdi Muuse Diiriye agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Cabdilaahi Siciid Khaawi agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Mukhtaar Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Farxaan Aadan Haybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Muniir Xaaji Cabdilaahi Abu Site wakiilka Somaliland ee dalka Imaaraadka Carabta Sharmaarke Axmed Maxamed Geela wakiil ku-xigeenka Somaliland ee dalka Kenya Maxamed Cabdilaahi Ibraahim gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Xariir Maxamed Koosar telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa